Bisha Ramadaan waa waqti dadka Islaamka ah soomaan waqtiga maalintii isla markaana ay cibaadaystaan habeenkii iyagoo tukanaya salaado saa'id ah sida taraawiixda iyo taajudka. Sidoo kale bisha Ramadaan inta ugu badan waxay ku dhamaataa 29 maalmood ilaa 30 maalmood. Waqtigaasi oo lagu bilaabo aragtida dayaxa isla markaana lagu dhameystiro aragtida bisha. Bishani waa bil dadka Islaamka ah aad ugu muhiim ah. Bishan waa bil ay waajib ku tahay dadka Islaamka ah inay soomaan ama inay waxba cunin inta ay qoraxda soo jeedo. Sidoo kale raad gaar ah ay bishani Islaamka ku leedahay dhaqan ahaan, waana bisha oo uu soo degay Qur'aanka Kariimka. Soonku waa mid waajib ku ah dhammaan muslimiinta ee qaangaarka ah. Markii laga reebo qofka xanuunsan, kan safarka ku jira, qofka da'da ah, dumarka uurka leh, dumarka naaska nuujinaya, dumarka dhiigga leh. Sida ku xusan taariikhda Islaamka ah, soonka bisha Ramadaan waxaa waajib laga dhigay sanadkii 2 ee Hijriga. Waqtigaas oo dadka muslimiinta ahaa dad ka soo qaxeen magaalada Makka iyagoo u socda magaalada Madiina. Quraanka iyo axaadiista ayaa aad uga hadlay bisha Ramadaan iyo ajirka ku jira qofka gutaa tiirkan soonka ah. Fadliga bisha Ramadaan waxaa ka mid ah in la furo albaabada jannada lana xiro dhammaan albaabada naarta. Sidoo kale la xirxiro shayaadiinta inta waaweyn, taasoo muslimiinta u sahlaysa inuu ka fogaado macaasida, allana u dhawaado cibaadooyinka suuban iyo ducooyinka u dhaweynaya jannada, kana fogaado naarta. Nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yiri: haweenka ugu horeeya Ramadaan waxaa la xirxiraa shayaadiinta iyo kuwa jinka ugu madaxa adag. Albaabada naarta waa la xiraa oo waxba lagama furo. Albaabada jannada waa la furaa oo midna lagama xiro. Mid dhawaaqa ayaa dhawaaqaya asigoo leh: ninkii khayr doonayo soo jeeso, ninkii shar doonayo jooji. Ilaahay waxa uu leeyahay kuwa naarta laga xoreeyo. Arrintaas wuxuu dhacayaa haween walba oo ka mid ah haweenada Ramadaanka. Sidoo kale bisha Ramadaan waxaa la soo dejiyay kitaabka Qur'aanka, waana bil barakeysan oo dadka muslimiinta u ah waqti aad uga tala galaan. Waa bil dambi dhaaf leh, ajirkeedana uu ka badan yahay ajirka bilaha kale la sameeyo. waa bil la aqbalo ducooyinka. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. intaas waxaa dheer in bisha barakeysan ee Ramadaan uu ku jiro haweenka ugu weyn sanadka, taasoo ah haweenka Qur'aanka Kariimka la soo dejiyay, waana haween Laylatul Qadr oo ka khayr badan 1000 bilood. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ramadaanku waa bisha deeqsinimada iyo khayrfalka iyo wanaaga. Waa bisha Qur'aan akhriska la badiyo oo taraawiixda iyo tahajjudka lagu nooleeyo habeenadeeda. Waa bisha sadaqada la badiyo, sabarkana lagu barto maadaama laga sooman yahay waxyaabaha naftu jeceshahay oo ay ka mid yihiin cunnada iyo cabidda. sidaa daraadeed culimadu waxa ay yiraahdaan soonku waa sabar iyo dulqaad barkii. Awaalmarinta dulqaadkana
waa jannada. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. sidoo kale bisha Ramadaan 10keeda maalin ee ugu horeeya waa raxmad, 10ka dhexe waa dambi dhaaf, 10ka ugu dambeeya waa naarta oo la iska xoreeyo.